Warar soo baxaya ayaa muujinaya in Pentagon-ka Mareykanka uu si hoose u dardargelinayo qorshayaal la xiriira dalka Cuba. Arrin dib u soo celinaysa xiisad taariikhi ah ayay midaani noqonaysaa, taas oo muddo dheer u dhaxaysay labada dal. Inkastoo aan si rasmi ah loo xaqiijin howlgal military, haddana muhiimadda Cuba ay u leedahay Mareykanka ayaa ka dhigaysa meel si joogto ah uga jirta istiraatiijiyadda Washington. Haddii aynu eegno juqraafi ahaan dalka Cuba waxay ku taallaa meel aad ugu dhow Mareykanka, qiyaastii 90 mayl oo keliya ayay u jirtaa Florida. Taasi waxay ka dhigaysaa goob istiraatiiji ah oo laga ilaalinayo amniga gudaha ee dalka Mareykanka, meel ay si sahlan ugu imaan karaan khataro military haddii ay cadow gacanta ku dhigaan. Taariikh ahaan, tani waxay sababtay xiisad culus oo u dhaxaysa labadan dal. Cuba ma ahan jasiirad oo keliya, waa meel ay quwadaha waaweyn isku si ay u daneynayaan. Mareykanka wuxuu ka walaacsan yahay xiriirka Cuba ay la leedahay Ruushka iyo Shiinaha. Waxaa sidoo kale jira cabsi ah in Cuba ay noqoto saldhig military ama sirdoon oo ay adeegsadaan cadowga Mareykanka, gaar ahaan Ruushka iyo Shiinaha. Warar dhowaan soo baxaya ayaa xitaa waxay sheegayeen in Cuba lagu eedeeyay inay si dadban ay uga qayb qaadato dagaalka Ukraine iyadoo taageero siinaysa Ruushka. Cuba waxay leedahay saameyn siyaasadeed oo aad u ballaaran oo ku fidsan Latin America. Tusaale, waxay taageertaa dowladda dhanka bidix u janjeera sida Venezuela, iyo sidoo kale waxay door ku leedahay xasiloonida ama qalalaasaha gobolka. Taasi waxay Mareykanka ku qasbaysaa inuu si dhow ula socdo si uusan u lumin saameyntiisa gobolka. Inkastoo Cuba dhaqaale ahaan ay daciif tahay, haddana waxay leedahay sanduuq suurtagal ah oo u furan shirkadaha Mareykanka, iyo sidoo kale waxay ku taallaa Cuba marin muhiim ah oo ganacsiga aad muhiim ugu ah. Mareykanku wuxuu saaray Cuba oo noqobateen adag tan iyo sanadkii 1960-meeyadii si uu u cadaadiyo maamulka dalkaasi Cuba. Dhammaan noqobateentaasi waxay sababtay dhibaatooyin tamar iyo dhaqaale iyo sidoo kale cadaadis siyaasadeed oo sii kordhaya. Cuba sidoo kale waxay muhiim u tahay Mareykanka marka loo eego qaxootiga iyo muhaajiriinta ka soo gudba badda Caribbean-ka, iyo sidoo kale isticmaalka saldhigga caanka ah ee Guantanamo Bay. Waxaa xitaa sidoo kale la qorsheeyay in halkaas lagu hayo muhaajiriin Cuban ah. Arrin dhalisay muran caalami ah ayayna taa noqotay. Xiriirka u dhexeeya Cuba iyo Mareykanka waa mid ka mid ah xiriirada ugu murugsan ee dunida. Mareykanku wuxuu hore u maamulay Cuba dabayaaqadii qarnigii 19aad. Waxaa jiray isku dayo afgambi iyo fargelin military. Sidoo kale dagaalkii Cuba ee Cold War ayaa sii xoojiyay colaadda u dhaxaysa Mareykanka iyo Cuba. Taariikhdan ayaa weli saameyn ku leh siyaasadda maanta ee Cuba iyo Mareykanka. Ugu dambeyntii, Cuba muhiimad weyn ayay u leedahay Mareykanka sababo badan awgood. Haddii aynu eegno juqraafi ahaan, aad ayuu ugu dhow yahay Mareykanka. Amni ahaanna, saameynta Ruushka iyo Shiinaha ayay keenaysaa in Mareykanku il gaar ah ku hayo Cuba, maadaama 90 mayl ay u jirto dhulka Mareykanka. Haddii Ruushka iyo Shiinahana halkaasi ay saldhig military ama sirdoon ay ka samaystaan, amniga Mareykanka qalqal ayuu gali doonaa. Siyaasad ahaanna, haddii aynu eegno, doorka ay ku leedahay Cuba dhinaca Latin America ayaa ah mid saameyn adag ah. Taasina Mareykanka faa'iido uma ah, sababtoo ah Cuba waxay taageero siisaa dalalka dhanka bidix u janjeera sida dalka Venezuela. Sidaas darteed, war kasta oo ku saabsan qorshe military iyo cadaadis cusub oo Mareykanku ku wajahayo Cuba ma ahan mid lama filaan ah. Waa qayb ka mid ah tartan istiraatiiji oo soo jiray in ka badan 60 sano. Adigu sidee ayaad u aragtaa in Mareykanka uu qorsheeyo in dagaal ama howlgal la mid ah kii Venezuela uu ku qaaday inuu ku qaado Cuba?